waxaana wanaagsan daawadayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudan oo kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan diiradda ku saari doono cidda uu yahay 10 minute oo ah sayga cusub ee Ilhaan Cumar. xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka tirsan Koongareeska Mareykanka lagana soo doorto Minnesota ayaa shaacisay inay guursatay. Ilhaan ayaa barteeda Instagram ka soo dhigtay sawiro iyada iyo saygeeda cusub ee Tim iyadoo ku qortay waan guursaday waxaan lamaane ku ahayn siyaasadda haatan waxaanu ku nahay nolosha waa barako alxamdulillah. haddaba waa kuma Tim oo dhashay dalka Mareykanka ayaa waxaa la sheegaa inuu dhashay 1981 waxaana uu wax ku bartay jaamacadda New York. bartiisa linkilega ayuu ku xusay in sanadkii 2001 iyo 2002 uu wax ka bartay jaamacadda KwaZulu-Natal oo ku taala dalka Koonfur Afrika. waxa uu soo bartay cilmiga siyaasadda oo uu ka qalin jabiyay sanadkii 2003. wixii intaas ka dambeeyay waxa uu la soo shaqeeyay hay'adda la yiraahdo Alliance for Justice ka hor inta uu ku soo biirin Street Group. Tim waxa uu soo maray guur waxaanu noloshiisa intii hore la wadaagay Beth Minton oo ay dhawaan kala tageen. Minton waxa uu ka tirsan yahay Street Group oo ah shirkad inta badan ka shaqeysa istiraatiijiyadda ololaha doorashooyinka, dejinta qorshayaasha musharaxiinta doorashooyinka iyo shacbixinta. inkastoo aan la ogeyn waxa uu shirkadda ka yahay, haddana waxa uu la soo shaqeeyay Ilhaan Cumar. waxa uu Ilhaan Cumar u qaabilsanaa dhanka ololaha doorashooyinka. waxaa hadda la sheegaa inuu yahay la taliyaha arrimaha siyaasadda. sida ku qoran barta uu ku leeyahay LinkedIn. Tim waxa uu ku takhasusay sidii ay xubnaha Koongareeska, musharaxiinta iyo tartamayaasha xilalka hay'adaha samafalka iyo ururada siyaasadda ay u heli lahaayeen lacago tabarucaad ah. sidoo kale shirkadda uu ka tirsan yahay ee Street Group ayaa qabata hawlo ay ka mid yihiin shacbixinta, xayeysiinta, qabanqaabinta, cilmi baarista iyo dhaqaale u ururinta. guddiga doorashooyinka heer federaal ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in Ilhaan Cumar ay lacag dhan $230,000 ay siisay shirkadda uu Tim ka tirsan yahay ee Street Group tan iyo sanadkii 2018. lacagahaas oo lagu qaban jiray la talinta dhanka siyaasadda iyo istiraatiijiyadda ololaha doorashada. Minton waxa uu sidoo kale la soo shaqeeyay siyaasiyiin badan oo laga soo doortay Minnesota, kuwaas oo ka mid yahay Ellison oo hore u soo qabtay xilka Ilhaan Cumar ay hadda hayso. Tim iyo xaaskiisii ayaa kala tegay sanad ka hor kadib markii ay sheegtay inay ku tuhuntay inuu xiriir la leeyahay Ilhaan Cumar. warbixin ay qortay Fox News ayaa ku warantay in xaaska Minton ay dalbatay furiin kadib markii ay tuhuntay in saygeeda uu xiriir jacayl la leeyahay Ilhaan Cumar. sidoo kale bishii October ee sanadkii hore Ilhaan Cumar ayaa dalbatay inay kala tagaan saygeedii hore ee Axmed Xirsi. 3 caruur ayay isu dhaleen. Xirsi ayaa dhowr bil kadib ku aqalgalay Soomaaliya. xiriirkeena guur waxa uu burburay si aan ka soo kabasho lahayn. sidaas waxaa lagu sheegay dacwad ay maxkamadda Minnesota u gudbisay Ilhaan ayaa sheegtay inay raadinayso sharci ilaalinaya caruurta, waxayna maxkamadda weydiisatay inay u ogolaato goob sharciga waafaqsan oo si wada jir ah loogu hayo 3 cunug ee ay isu dhaleen. daawadayaal intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa war murtiyeedkan aanu ka soo xiganay laanta af Soomaaliga ee BBC. waxaadna kala socoteen Waqooyi Channel. intaanu kulmi doono oo marka xiga waxaan inagu dhaafinaa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.